kula wanaagsan daawadayaal halkan waa xarunta wararka ee Gurmad Media haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kuna dhufo calaamada gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wararkii iyo waraysidii ugu dambeeyay ee halkan soo dhigno markaana maamulka telefishinka Universal ee xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa maanta dacwad ka gudbiyay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo sabtidii hore weerar ku qaaday xarunta TV-ga ee magaalada Muqdisho warqadan dacwadda ayaa telefishinka Universal waxay u gudbiyeen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kadib markii la aqoonsaday oo la ogaaday sarkaalkii hogaaminayay weerarkii sabtidii hore lagu qaaday xarunta TV-ga weerarkaas oo khasaaro hantiyadeed iyo qalqal iyo cabsi dadweyne ka dhaliyay goobtii ay weerarka ku qaadeen hay'adda difaacayaasha suxufiyiinta ee CBC yiraahdo waxay sheegaysaa in wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska labadooduba ay qaban waayeen taleefanadooda kadib markii ay qabsadeen maalmo kooban in ay jawaab kaga bixin doonaan weerarkaasi baaritaan ay sameyn doonaan maamulka TV-ga Universal oo la xiriiray wasiirka iyo sidoo kale taliyaha muddo dhowr maalmood ah kama aysan jawaabin taleefanadooda sidoo kale waxa la sheegayaa in taasi ay sabab u noqotay in TV-ga Universal oo dacwado wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaa kala socod doonta haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kuna dhufo calaamada gambaleelka waxa suurtagal ku ah inaad heshid war walba halkaas soo dhigno